سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة كن سعيدا كن فريدا. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وعن كسر هذا اللي خطبتي تنكه الرئيسي أخلاق ذا وناكسن أمر دقوناقه دقوناقه وحيابها قيره سوق مهم سوى حكم ذا حشات كشيء الله يقام صفة الحياة وأن أوران كنا واحد يسوح السوسين عصر جا وحيابها يراضي أما ضد بدن كله ما يبو كم ديها حشاته أما الله يستوعب يبدأ ونمو يلبحن ملآن حشات وأرين فطري يوي إلى هاي قفك أنت وعادي جاي هاي وحلقوا أبو روي مركا أخلاق دي سيا مركا دقة كيس عادي جاي سيدا درادد أيا نبي آدم إيا حواء مركي عورده أي برناراتي إجيت كي أي عنان أيا لها وحول فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة عوردي باب برناراتي وأسترني بركي هرا عورده محا أستري إلهي يقانا وحا أستري دركي جنة باقرحيني وأستري waxyaabaa lagu cuqubeeyo waxaa ka mid a qaawanaan bay u baxeen odagii islaantii markiiba waxay bilaabeen intay naxeen caleentii balballaadhnayda jannada inay soo qaadaan isu asturaan fabadat lahumaa saw-aatuhumaa aayad kale ilaahay wuxu uhi waxaa u muuqatay xumaystoodii shaygii qofka xumayn jiray marka uu muuqdo oo cawradii hoose ah markaasay isku dayeen inay qariyaan waa inta qofka dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisu ay caadiga tahay wey markuu se ibliisku duufsado ee dadka silan qofkaasi uu ku beero shaygaa xumaysta la yidhaahdo ama cawrada lafteedu ku faanaaba inuu soo bandhigaba mana xumaysa haddii ay qaawantee uu ku xaragoodaaba ilaan akhlaaqdiisi baa isbedeshay islaamkeennu aada iyo aada buu dhiriyey shayga la yidhaahdo xishoodka nusuus badan iyo daliilo badan oo maqlayseen baa dhiiriyey haddaynu qaar ka mida ku noqonno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ammaanay dumarkii qiimaha badnaa ee qur-aanku uu ka warramay mid ka mid ah waa ina Shucayb waa inantii nebi muuse u yeedhaysay markuu adhiga u waraabiyey waxyaabaha ilaahay uu si gaara u tilmaamay waxaa ka mid a qisada ah inantaa iyo xaaladeedii xishoodka الله وحول فجاءت إحداهما تمشي على استحياء لبدي هبلودو أرجع ورابية متكم إذا النبي موسى كسر نقطي يلا حشون ويسوء هيبد يحشون وكم وقنايو تعالوا إلى هاي كتش على هذه الدرادة بربعوا على مدن يهنتا صوح السياب حشود كوا ووحل السهيقات ومدنوع ذي إنه كتشرون وكم مغنانين oo ku mudan oo ku haboon madaxda iyo raaciyada iyo rag iyo dumarka iyo daayirta soo koraysa intaba asxaabtu cilmiga nabiga ka martii jireen ayaa ay ugu yimaadeen nin saxaabiya nabiga u yimido waxa uu awsini ya rasuulallah ii dardaaran waxaad eegaysaa marka nabi maxamed la ilaahay dardaaran de waxyaabaha uu sheegayaa waa waxyaabaha ugu muhiimsan رسولكم مركا وحكوري صلى الله عليه وسلم أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك وحن كو شيء يقول دردار ميا إلهي وقح الشوط سيدا وقح الشوطه قفد قدرين يسو وإهل كاقا كو ونكسن كمدا يا الحق نوريس إلهي سيكا وقص حشوط سبحانه وتعالى دردارنك وإنتا إنت أسول النبي يقول إلهي كحشوط أيو قجوتي رسولك صلى الله عليه وسلم سادر أديت بع علماء وحي لين حشوت قوى صدح قيباض ميد الله لقى حشوت وكان نبيه أن فري أصحابك
iyo qofku uu ka xishoodo dadka khalqiga uu la dhaqmayo ayuu ka xishoonayaa oo isleeyahay shaygaa waa lagu ceebay, shaygaa sharaftaada hoos u dhici, shaygaa waa lagu dacaydayn. iyo xishoodu ka xishooda naftiisa oo qofku markuu yahay qof miisaan leh oo mudan wuxuu ku xisaabtamayaa inuu muru'adiisa ilaashado iyo sharaftiisa. saddexda qayboodba waa noqdaa. xishoodku waa wax la kala dhexli jiray ama dhaqankii saalixiintii ambiyada wanaagsan ahaa. sidaa daraaddeed buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxyaabihii ambiyadu ay iska soo gaadheen ama laga soo gaadhay waxaa ka mid a haddaad xishoon weyda waxaad doonto samee. inaan xishoonayn dagaal xeeli kama hayso. xumaan uma joojiyo iyo ceebayn iyo wax laga sheego qofkaan xishoonayn. marka macnaheedu waa canaan iyo huruuf iyo hanjabaado. haddaad xishoon weydo albaabkaad doonaysa ka bax, waxa ku gaadhaad arki. isagoo islaamkeenu dhiirinaya xishoodka wuxuu ku tilmaamay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xishoodku inuu ka mid yahay qaybaha iimaanka. marka haddaad xishoodka ka tagta waslad baa go-day, iimaankii wuu qooman yahi. dadka aan xishoodka lahayn iimaankoodu waa qooman yahay oo ma dhammaystirna. iimaanku waa 7 qaybood. walxayaau shucbatun min aliimaan. xishoodkuna wuxuu ka mid yahay qayb iimaanka ka mida wey. cumar ibnu khadaab allaha ka raali noqdo isaga oo ka warramaya xishoodka waxau ihi qofka xishoodkiisu yaraado xalaal miirashadiisaa yaraata. hadday xalaal miirashadiisu yaraatana qalbiga ayaa qomboba ama qallafa. dee qofka qalbigiisu engegana rajo ma laha. rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu la hayay, taageer u ahaa cidda had iyo jeer asxaabtiisa xishoonaysa. nin asxaabi u arkay oo reer ansaareed ahoo walaalkii ka waaninaya urursanaantan iyo xishoodkan iyo indhahan u laabanayo. markaa wuxuu nabigu ku uhi calayhi salaatu wasalaam dachu fa ina alxayaa'a min aliimaan. war ninkan iskaga hadhoo iska daa xishoodkan uu ku sifaysan yahay iimaanku ka mid yahay. iimaankiisoo wanaagsan bay sheegaysaa xishoodkaasi u sheegaya. alxayaau laa yaatii bikhayr. xadiid kale rasuulku wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam xishoodku wuxuu la yimaadaa waa khayr. qofku uu xishoodo hadduu dadka xishoodku ka tago ama xumaanta ay ku faanaan waxyaabaha lagu cuqubeeyo waxaa ka mida buu nabigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam inaanu ilaahay towbadaba ka aqbalinba. towbadda cid walba waa laga aqbala, xataa gaalku hadduu toobad keeno waa laga aqbalaa. laakiin qolada aan laga aqbalayn waa dadka xumaanta ku faana ee aan ka xishoonin. kullu ummatii mucaafa ila almujaahiriin. rasuulullaahi maxamed wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam ummaddaydoo dhan ilaahay wuu cafiyayaa kuwa magacaa la ydhaha mujaahiriinta mooyaane ee xumaanta ku faanee kor u qaada. mujaaharada waxaa ka mid a iyo xumaanta oo la muujisto inuu qofku xumaan habeenkii sameeyo ilaahay asturo, kadibna dadku ugu faanayaa wuxuu leeyahy xalay waxaasaan sameeyey, waxaasaan sameeyey, waxaasaan sameeyey. godobuu ilaahay ka galay, miduu ummadda ka galay, miduu naftiisa ka galay, mid kastaba ha ahaato. wax waliba cawray leeyi, dalku cawruu leeyi iyo meelo goldaloolooyina oo in la soo bandhigo la baahiye aan mudnayn ee in la asturo mudan. dadkuna waa saas oo kale. dadka muslimiintu cawray leeyihiin, cawradooda in la asturo weeye oo aan ceebtooda lagu faanin oo laga faa'iidaysanin faafinteeda. qofkuna cawruu leeyahy, jidhku cawruu leeyahy. cid walba cawradeeda uu islaamku diiday in la baahiyo, in la bandhiga maaha. hadduu qofku bandhigana cadaab buu ku mutaysanaya. alla wuxuu uhi ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira. dadka jecel xataa ayaanay baahininbe ku faraxsana jecel in ceebta muslimiintu ay bannaanka timaado oo dadkaa alla yaqaanka ah ee adduunka dhexdiisa ku ceeboobaan cadaab kulul bay leeyihin baa ilaahay uli subxaana wa tacaala. xishoodow maxaa tahay? marka tacriifkiisa iyo la eego tilmaantiisa ile qalad baaba laga fahmi karaabee waxay culimmadu ku sifeenunaya khuluqun yabcahu calaa tarki alqabiix wa yamnacu min altaqsiiri fii xaqi dilxaq. waa dhaqan wanaag qofka ku dhiiri gelinaya inuu iska daayo wixii xun ee inta aynu soo sheegnayba ku xun, iyo inuu ka xishoodo inuu ka gaabiyo
ciddii xaq le inuu xaqeeda siiyo. sidaa daraaddeed baan xishood loo tixgelinaynin haddaad wax islaamka dhexdiisa ku xun aragto, ama madax ku arag, ama mucallinkaaga ku arag, ama waalidka, ama ehelka, ama asxaabto, inaad ka aamustaa xishood maaha. laakiin siduu rasuulku ina faraya sala allahu calayhi wasalam, qofku hab wanaagsan ha u soo bandhigee munkarkaa iyo macsiyadaa iyo dembigaa waa inuu diidaa. sida ugu fiicanna u diid eed qofkaa ku qancin lahayd ee qalbigiisa ku kasban lahayd. waa kaynala man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan. qaybihii la marinayay munkarka marka la diidayo, qofka xumaan arkaa ficil ha ku diido, ka kale hadduu kari waayo qowl ha ku diida, hadduu kari waayo qalbiga ha ka naco. laakiin aad tidhaahdo qofkani waa qof haybad le iskaga xishood oo ka gaabso, maya, usluub wanaagsan waad usoo bandhigaysaa, laakiin waxaan inuu diin ahaan mamnuuc yahay adiguna aad diidan tahay caddee. saciid ilmusayib baa nin saaxiibkiiyabaa buu u hindhisay, yarxamuka allaahu buu odhan waaye. qofkuna hadduu alxamdulilaahi buu odhan waayo. qofkuna hadduu alxamdulilaahi odhan waayo, yarxamuka allah lama yidhaahdo. marka kolkuu eegay ee uu la fahmi waayey ayaa wuxuuhi waxaan ku su-aalay, haddii qofku uu horta hindhiso muxuu yidhaahdaa? markaasaa wuxuu ku jawaabay, wuxuu yidhahdaa dee alxamdu lilah. suu hi haddaba yarxamuka allah, macnaha si wanaagsan buu ugu soo bandhigayoo uu ducadii ninkaasi ku heli lahaa. marka arrintaasina waa arrin mudan in la saxo oo la baraarujiyo. wixii xaq ah inaan laga xishoonin barashadiisa iyo faa'iidaysigiisa iyo in dadka la gaadhsiiyo. xishoodka ilaahay laga xishoonaya markuu rasuulku dhiiri gelinaya sala allahu calayhi wasalam, ummadduu la hadlay xadiidkii saxiixa wuxuu ihi istaxyuu min allaahi xaqa alxayaa. dad yahow ilaahay ka xishooda xishoodka dhabta ah. asxaabtu waxay yidhahan yaa rasuula allahi innaa nastaxyi walxamdu lilah. ilaahay baa mahadle dee saanu arkayna ilaahay waanu ka xishoonaa. markaa rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam laysa daaka walaakina alxayaa min allahi xaqa alxayaa. kaan idiin sheegayaa kaa maaha xishoodka dhabta ilaahay laga xishoonaya waxa weeye an taxfada alra'sa wamaa waca waalbatna wamaa xawaa waltadkuri almowta walbilaa. waxa weeye inaad ilaaliso madaxa iyo wixii uu koobay, ood xaaraantii iyo xumaantii iyo ceebta ka ilaaliso. madaxu muxuu koobay? maskaxdii, indhihii, afkii, dhegihii, intuu koobay oo dhan ee madaarigta iyo dareemayaasha ah eed isticmaalaysa ka ilaali wixii alle ka cadhaysiinaya, iyo uurku jirta ama gudahaaga iyo wixii uu koobay, oo xaaraan ha gelininoo ha u sii daynin. aakhirana xusuuso oo waxaad noqotaa ilaahay sortaaggiisa mid ku fikiraya. xishoodka saasuu ku fasiray nabigu calayhi salaatu wasalaam. alxayaau takhalluqun biakhlaaqi illaah. xishoodku waa sifooyinkii ilaahay weye subxaana wa tacaala. ilaahay baa uu nebigu ku sifeeye waxau uhi ina rabbakum xayiy. ilaahayna waa xishood badan yahy, mid xishoonaya wey. addoonkiisa wuu ka xishoodaa markuu intuu baryu gacmaha hoos dhigto iyagoo madhan inuu ilaahay ku soo celiyo wuu ka xishoodaayo waxbuu ugu soo ridaa. ilaahay ma qadiyo, bakiilna maaha subxaana wa tacaala. aahaarta iyo siday u dhiiri gelin jireen markaynu eegno xishoodka culimadu wax weyn bay ahayd. wahb bnu munabah baa wuxuu lahaa aliimaanu curyaan walibaasuhu taqwa waziinatuhu lxayaa wamaaluhu alcifa. iimaanku wuu qaawan yahay oo waxa dhar u noqda alla ka cabsiga, waxa quruxo ah xishoodka, waxa maal u ah dhowrsoonaanta, uu qofkii dhowrsoon yahay. fudayl ibnu cayaad waxa uu lahaa caabidkaa weyn isaguna 5 min calaamaati shiqwa aw shiqaawa. 5 arrimood waxay ka mid yihiin astaamaha guuldarrada. haddaad qofka 5 arrimood ku aragto: qaswatu lqalb, in qalbigiisu qallafo oo aanu qoyanayn khayrka iyo dhegaysigiisa iyo inuu qaabilo. wa jumuudu lcayn, iyo qofka oo ishiisu ay qallalantoon marnaba ilaahay daraaddii u ooyeyn. wa qilatu lxayaa, iyo in xishoodkiisu yar yahay. waraqbatu fi dunyaa wa tuulu lamal, iyo inuu adduunyada u waashuu daba cararo iyodidiiladiisuna ay tahay midaan nihaayad lahaynoo dee masaafo dheer iyo muddo dheer ka fikirayoon geeriba xusuusnayn. qolyaha shicirka iyo gabayga ka tirinaya way badnaayeen. waxa uu lahaa ninkaa la odhan jiray saalix ibnu janaax: idaa qalla maau lwajhi qalla xayaauhu walaa khayra fii wajhin idaa qalla maauhu.
qofka haddii biyaha wejigu ay ka dhammaadaan xishoodkiisaa yaraada khayrna ma laha weji aan xishoonayn ama biyuhu ay ka dhammaadeen waxay leeyihiin carabtu had iyo jeer biyahan wejigay sheegayaan waa dhididka oo qofku inta uu sii xishoonayo wuu dhididaa markuu yaro khajiro ama wax ku ceeboobo laakiin sidaynu nidhaahno qofku marka uu soo kaalaxe ee ceebtu ay caadi u noqoto wax kastoo fadeexadoo ku dhaca dhidid ma yeesho ibnu jariir atabari shaykhu lmufasiriin markuu xishoodka ka hadlaya wuxuu lahaa xayaai xaafidun lii maa wajhi wa rifqii wa mukaalamati rafiiqi wa rifqii fii mukaalamati rafiiqi biyahayga wejiga ku jira ay ilaalinaya xishoodkayga sidaa daraaddeed baan saaxiibadayda marka aan la dhaqmayo si wanaagsan ula dhaqmaa arrinta aynu u baahannahay haddaba waxa wey xishoodkii aragna qiimihiisa fama dariiqu ila alxayaa wadadee loo maraa xishoodka ama maxaa lagu kasbadaa waxaa lagu kasbanayaa istixdaaru muraaqabati illaahi tacaala inaad ogsoontahay inuu ilaahay ku arkayo oo uu ku eegayo haddaad rag tahay haddaad dumar tahay markaad gooni tahay markaad gurigaaga joogto markaan cid kaleba ku arkayn haddaad dareensantahay inuu ilaahay ku arkayo waxaad noqon doontaa qof dhowrsoonoo halkaa dadka iska eegi lahayd ilaahay baa kaaga sokeeyood iska eegaysaa waa waxa ku dhiiri gelin karaya alla wuxu uhi wahuwa macakum aynamaa kuntum meel kastoo joogtaan ilaahay wuu idin wehelinaya maa yakuunu min najwa halaaثatin ilaa huwa raabicuhum walaa khamsatin ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akthar ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu qofku haddii dadku hadday laba yihin iyo saddex yihin cid walba ilaahay baa wehelinaya subxaana wa tacaala markaa qofkii wuxuu leeyay so ilaahay kuma weheliya maxaad cid kaleba ka sheegi dee ka xishood waxyaabaha inagu dhiiri gelinaya waxaa ka mid a mujaalasatu man yustaxyaa minhu cid had iyo jeer laga xishoodo ama xishoonaysa inaad ka ag dhowaato qaala bacdu salaf culimadii hore qeyb ka midi waxay idhaahdeen axyu lxayaa bimujaalasati man yustaxyaa minhu xishoodka waxaad ku noolaysaa xishoodka naftaada waxaad ku noolaysaa inaad ka ag dhowaato cid xishoonaya ama isagaba laga xishoodo waa dadka saalixiinta ee wanaagsana qiimaha badan ee araggiisu alla uu ku xusuusinayo tadabburu kalaam illaah ilaahay qur-aankiisood akhrido oo adeegto oo dhaqankii dadka wanaagsan iyo malaa'igta iyo mu'miniinta iyo adeegto oo aada akhrido way kaa caawinaysaa altarbiyatu cala alxayaa waxyaabaha inaga caawinaya waxaa ka mid a ficeenna iyo da-yarteenna soo koraya inaynu xishoodka ku barbaarino ceeb baa la odhan jiray ceeb waxaasi ma banaana waxaa iska daa ish weeye sidaa lama yeelo bulshadaad la nooshay marka wanaagsan iyaga carruurta tarbiyeeya macallinkaa tarbiyeynaya madarisada guriga markaa carruurta in lagu rabeeyaa wax weyn bay naga furanaysa markaa isku mid maaha carruurtu markay soo baxaan qofkii rabaayad fiican oo xishooda la siiyeyna uu ka muuqa quruxda xishoodku way ka muuqanaysaa kii kalena foolxumadu way ka muuqanaysaa xishood la-aanta saa daraaddeed ba rasuulku sala allahu calayhi wasalam inankiisii xasan awowga u ahaa xaba timira buu qaatay nebigu wuxuu ku yihi ish buu yihi miyaanaad ogeyn sadaqadu inaanay sekadu inaga xaaraan tahay iska daa buu iska daa xaaraan bay inaga tahay xasanna siibuu ku wariyey oo qalbigiisa ay ku gashay isagoo ilmo yara macnaha timirtaasi waa sekaduna xaaraan bay inaga tahay iska daa buu lahaa waa tarbiya waa ta maanta aynu odhan karno waa inagu yartay waalid isagii heesaya oo jaasaya oo buuqaya oo caytamaya oo oridii iyo odaygii isu kala tirinayaan ay isku foogan yihiin ilmaha yara ka soo dhex baxayaa muxuu noqonayaa ama waalid gurigii u yaallo filimo qaaqaawanoo isagiiba daawanaya waa nasiib darradayna haysata marka tarbiyadaasi waa muhiim carruurtan aad la yaabsan tahay ee waalidkii sanka ka gelaya mucallinkii dhibaya ummaddii dhibaya habeen iyo maalinba u geysanaya dhibkii cadowga u geysan lahaayoo kale wax xishood la-aanta waa la rabaynin waxaa ka mid a waxyaabaha keenaya isaalatu maa fi lxayaa maa yunaafi lxayaa wixii xishoodka diidaya ama ka hor imanaya oo laga saaro sinaynu tusaalaha hore kusoo sheegnay hadda casrigan aynu joogno waxyaabaha xishoodkii dadka ka qaaday waxaa ka mid ah siiba daayarta waxaan tiknolojiyada la ydhaha iyo horumarkan gaaladu ay noo soo waarideen iyo agabkan la sameeyey shar iyo khayrba waa leeyi khayr wuu yeelan karaayo qofka diin ilaahay ka baranaya akhbaar ka qaadanaya macluumaad ka kororsanaya dee macluumaad badan baa ku jira sharna wuu leeyahayoo dee rag baa waxay ugu talagaleen inaanad ka macaashin ee in yaroo manfaca haddaad ka qaadato madarada iyo dhibka kaa soo gaadhaysaa inay ka badato saa daraaddeed baa mucallin hawada ka soo gelaya gurigaaga
ayuu ilmaha yari mobile ku sita oo TV-ga ugu jira oo internet-ka ugu jira oo adigu aanad ka warhaynba ilmihii yaraa marka loo iibiyo jawaalka ama mobile-ka smart-ka ah wax walba soo qabanaya waxa loo baahan yahay in aad wacyigelin badan oo ku salaysan qancin qofkan aad ku qancinayso caqiidadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo xishoodkiisa oo intaad ka warwareejin kartana waxa inaad ka warwareejiso aad ka ilaaliso inaanad u furin albaabkiisa marka arrintaas xishoodka wixii ka hor imanaya inaan lagu soo daynin dalka iyo dadka iyo ubadka iyo aqalka iyo ooryaha inaan lagu soo daynin hadduu TV-gi yahay internetkii mobilekii oo laga balogalaya ama laga xidhaa waxa la wixii khatar ku ah ummadda dhaqankooda arrimahaas waa waxyaabaha inaga caawin karaa ama waddada loo marayo xishoodka saaxiibadiina waa ka mid saynu hore usoo xusnay inantu marka inan xun la saaxiibta inanku inan xun odaygu oday xun madaxdu madax xun dee qofkii uu lumayaa wuxuu ka faa'idaysanayaa xishood darradii iyo ceebtii tusaalayaasha haddii aynu soo qaadano namaadij wax waliba tusaale ay leeyihin dee tusaale innaga waxa inoogu filan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo xishoodkiisa ilaahay uu ka markhaati kacay ina dalikum kaana yu'di nnabiy fayastaxyii minkum asxaabta la yidhaha arrintaa ha samaynina iska daaya dhibaatay ku tahay nebiga isaguna uu idinka xishoonayaa dadkiina aqalkiisa fadhiya idinkoo martida ku ah oo marti isaga u ah ka bixi waaya aqalkii ku raagay isna iga soo kacaya waanu seexanaynaa buu idin odhan kari waayo idinka xishoonayaaye nebiga ilaahay wuxuu uga markhaati kacay xishood maxalu shaahidku waa caynkaas asxaabtuna waxa ay leeyihiin wuu ka xishood badnaa min alcadraa'i fii khidriha inanta gashaantida ahe gurigeeda ku jirta aan bannaankaba soo bixin shaqo loo diran meel tegin sidaa u xishooto nebiguu ka xishood badnaa calayhi salaatu wasalaam dee waxaana taa ka markhaati ahaa xataa wacdiga markuu sheegayo dadka inuu wax gaadhsiiyana uu isku dayi jiray afkana kumuu ballaadhin kari jirin rasuulku sala allahu calayhi wasalam ruux dumaraa maalin maalmaha ka mida nabiga waxay weydiisay ku tiri siday ruuxa dumari caadada uga maydhanaysa dhiiggana lagu ku abuuray dumarkee ka yimaada markay ka maydhanaysa say uga maydhanaysa markaa waxbuu uga tilmaamay oo dhiigga raad saa iyo saa xabad mara yaroo cadar leh iyo ha qaadato oo siday odhanaysaabay tii markaa wuxu uhi subxaana allah tataharii biha ilaahay baa xumaan ka hufana dee waxaan ku ihi isticmaalo isku nadiifiyuun markaa caaisha waxay aragtay inuu nebigu ka xishooday arrintaa waanay maqlayso goobtay joogtay gabadhii bay dib usoo qabto waxay tihi anigaa kuu sheegaya kaalay oo way u tiltilmaantay arrimihii hoosoosee dumarka sidaasay ka dhaxleen ubadkiisa iyo ooryihiisuna nebiga calayhi salaatu wasalaam oy tahay inay dumarkeennu ku daydaan fi lxayaati wa fi lmamaat xataa hadday dhinteen iyo hadday nool yihiinba caaisha waxay leedahay markii nebi maxamed lagu aasay calayhi salaatu wasalaam gurigayga maqsinkeedii baa lagu aasay waan iska dhar dhigan jiray markaa seexanayo haddana aabbahay baa lagu aasay iyadana waxaa odhan jiray dee waa aabbaha iyo saygaagiyo waan iska dhar dhigan jiray sida qofku markuu seexanaya uu sameeyo kale laakiin markii cumar ibnu khadaab lagu aasay maqsinkaygii waan anoo xijaaban baa seexan jiray bay leedahay radia allahu canha allaha ka raali noqdo nin ajinabiyaa kusoo biiray adeerkeedba ha ahaado asxaabiba ha ahaado saaxiibkii nebiga ha ahaado suraad baan ku seexan jiray bay leedahay sidaasay ahaan ubadkiisuna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa midh mudan hablaheenna horu soo fadhiya faydfaydanaya inay ku daydaan maanta ee dhag la qabtaba aan lahayn ee ragga jidhaya dulbaxaya ee facebooka isa soo dhigaya iyagoo qaawan nasiib daro faadima markii ay sii dhimanaysay inantii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay sheekaysteen asmaa bintu cumays xaaskii abubakar ayaa ag fadhiday oo la joogtay dabeetana waxay aragtay iyadaioo fikiraysaoo yaro baxsan waxay tihi faadima maxaad ka fikiraysa inay geerida iyo waxaas ka yar baqaysaabay u malayso waxay tihi yaro dhiirigeli wax kale kama baqaya marka aan dhinto naxashkaa ragga ajaanibta ay ugu qaadayaan cawradaydu ay ka muuqanayso ayaan ka naxsanahay bay tii oo naxajku wuxuu eegaa markii hore sida kan ambalaaska iminka la saaroo kale ee aan geesaha dhaadheer lahayn ee qofkii markaa la saaro jidhkiisii uu muuqanayo meelihii kuuskuuskiisi iyo gacmihii iyo qaarkii dambeeya ay muuqanayaan naxashku berigii hore saasoo kale u ahaa marka raggaa ajaanibtee jidhkayga arkaya ee meydkayga qaadayaan ka warwarsanahay bay tii haddaba taa anigaa furdaamin doonee berigaanu xabashida u hijroonnay ayaa waxaan kusoo arkay bay tihi naxash geese dhaadheer leh oo qofka ka sarraynaya oo mara dusha laga saari karo
kaasaan kuu samaynaya isu kii bay usoo samaysay waa naxashkan imika aynu jinaasada ku qaadnee geesaha dhaadheer ee afarta geesa dhaadheer ee meydkuna hoos ugu libdhayo maradana dusha laga saarayo iyadoo sakaraadabay kii soo agdhigtaa waxay tihi waad i asturtay allaha ku asturo kaa weeyaanka aan ku faraxsanahay bay tihi waa arrin la yaab leh maantana cadal ismari faydfaydo cawradaada bannaanka u soo dhig ragga u sanqo ilaahayna uu arkaya addoonta caynkaa samaynaysa iyo ninka isaguna xumaantiisa bannaanka soo dhigaya rag iyo dumar mid walba namaadijka iyo tusaalayaasha waxaa ka mid ah asxaabigii cuhmaan ibnu cafaan ayaa ku soo baxay nebigoo meel fadhiyo halkaaba jilibkiisu yaro faydan yahay markaasuu nebigu uruursaday oo jilbihiisi iyo cagihiisi iyo uu isqariyey markaa waa la weydiiyey waxaa la yidhi maxaa sidan u yeeshayoo wuxuu ihi alaa tastaxii min rajulin tastaxii minhu lmalaa'ika miyaanan ka xishoonaynin malaa'igta ilaahay ka xishooto waa cuhmaan anigu waan ka xishoonayaa buu nin malaa'igta ilaahay ka xishooto malaa'igta ilaahay baa xishoodkooda daraaddii asxaabta ka xishoon jiray anas ibnu malik wuxuu inoo sifaynayaa asxaabigii la odhan jiray abi muusa alashcari waxau ihi kaana yanaamu bitubaan ilaa laa tankashifa cawratu waxa uu seexan jiray surwaal buu ku seexan jiray abuu muusa alashcari si aanay marnaba isagoo soo jeeda iyo isaga oo hurda aanay cawradiisa u muuqanin ibnu cabbaas allaha ka raali noqdo isaguna xamaamka marka uu galo waxa uu ku maydhan jiray surwaalkiisa oo adag ayuu ku maydhan jiray markaa wuxuu odhan jiray waxaan diidayaa inuu ilaahay arka anigoo qaawan imaamkii muxadidka ahaa a'immadan ummahaadka qoray oo dhan muslim mooyaane shanta kaleba sheekha waxaa la odhan jiray maxamed ibnu yaxya markii uu dhintay ayaa addoontiisii baa la hadashay nimankii meydkiisa maydhaya oo waxay tihi war ninkaa 30 sano aan u shaqaynayo adinkiisaa maan aragoo faydane jinaasadiisa ha faydine dharkiisa ku maydha waxaad iyo aada u cajiib badan bahan iyo tusaalayaal la yaab leh marka waxaynu kusoo ururinaynaa inu leenahay maanta iimaanka qoolme waxaa ka mid a akhlaaqiyaadka lumay cawrada bannaanka taalla xaaraanta aan laga xishoonaynin rag iyo dumarba lagu faanayo si aynu u yeelanno haybadii islaamku inagu dhiirigeliyey iimaankii wanaagsanaa waa inu noqdaa intaa aynu soo xusnay xishoodku dariiqooyinka ku loo maro oo la soo ceshado oo xishoodku waa gobanimaday dadku ku faanayaan waa inuu qof ku xishoodo xaaraanta afkiisa galaysa ta indhaha uu ku eegaya ta dhagaha uu ku maqlaya ta caloosha uu gelinayo iyo cawradiisa iyo ceebta uu soo bandhigayo iyo ta ummadda uu bandhigayo waxaasoo qofku uu ka xishoodo weeye gobannimada iyo sharaftu maaha qaladka aynuu fahamnay allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaaila baailan warzuqna ijtinaabah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم واقم الصلاة في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة